أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم halkan Ugbaad Health Cooking weeye asxaabta Ugbaad Health Cooking oo nala joogta oo mar walba maxaan ku dhadaa asxaabtayada ah oo macmiilka noo ah waa mahadsantihiin soo dhawaada intii aad nala joogteen ku mahadsantihiin asxaabta cusub iyagana waxaan leeyahay idinkuna soo dhawaada oo subscribe iyo like noo saara na dhiirigeliya waad mahadsantihiin maanta waxaan ka hadlaynaa asxaabay mirahaas beetrootka la yiraahdo baan ka hadlaynaa waa miro ilaahay uu siiyey nafac iyo wanaag miraha marka ilaahay wuxuu ina siiyey fawaakih ama qudaar ama bini aadamkiis ilaahay ugu talagalo tirada ka batay waxaas marka kulligood micno ilaahay u sameeyey fitamiino gaar ay leeyihiin waxaan ka samaysanaynaa maanta juuskaas aan ka samaysanayno waxaan ugu talagalnay dadka cudurrada gaarka qaba haddii aad qabtid cholesterol haddii aad qabtid maxaan ku idhahdaayey diabetic ato oo sukor aad qabtid cholesterolka isagana waxaa la yihahdaa dhiig subag bay soomaalida tiraahdaa haddii dhiigaagu uu kacsan yahay ama hypertension lagugu sheegay haddii maxaan ku idhahdaayey aragga indhahaagu ay hooseeyaan aad iyo aad buu ugu fiican yahay beetrootkan bahalkan mirahan la dhaho waddankeenana in laga helaan filayaa in aad iyo aad loo isticmaalo buu ku fiican yahay faa'iidooyinkiisa lama soo koobi karo iyo waxyaalaha ilaahay uu ku abuuray ama fitamiinada gaarka oo laga helo oo ilaahay ugu talagalay maba la soo koobi karaba haddaan wax yar aan ka fiirino waxaa ka buuxa baa la dhahaa ama full ku ah maadadan la yiraahdo folic acid maxay tahay folic acid waxa weeyaan waa HB-ga qofkaas dhiig yari kuma dhacayso anemiyana agtiisa soo mari mayso hadday aad tahay dadka mindhiciradoodu ama mindhicirada oo dhan kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar aysan cunadu aysan degdeg uga soo bixin ama aysan mindhiciradu nafaqada aysan jirka u gudbinna wasakhda ku jirta iyo waxyaalaha u diidaya in ay wasakhdu ay ka baxdo buu nadiifiyaa cleanis colon baa la yirahdaa ama mindhicirada waaweyn oo dhan buu nadiifinayaa maxaa iyadana la mid ah dhiigga iyadana dhiigga wareegiisa aad iyo aad buu isagana u nadiifinayaa dhiiggaas oo dhan waxaa kaloo ka mid ah immune system waxaa la yirahdaa difaaca jirkaaga kor buu u qaadayaa oo jirkaaga waxyaalaha soo weeraraya ama banaanka kaga imaanaya oo soo weeraraya difaac xoog leh buu ka yahay beetrootku waxaa kaloo ka mid ah anti cancer dadka kansarka qaba oo dhan mirahan guryaha u yaalaan aad bayna u isticmaalaan haddaad qabtayna ilaahay waxaa laga yaabaa inuu kaa yareeyo oo kaa qaado haddaad si joogta u isticmaashid haddii aadan qabinna prevention buu kaaga noqonayaa waxaa kaloo ka mid ah dadka wejiga nabruhu ka soo baxaan oo nabrahoodu wejigu aad nabruhu ka soo baxaan nabraha afka biyaha iyo malaxa kuwa tale wuu u fiican yahay haddii cabaan iyo haddii wejiga marsadaanba aad buu ugu fiican yahay waxaa kale oo ka mid ah inay ka buuxaan maadooyin yaable sida sodium sokor cusbo waxaa ku jirta nature baa ku jirta ilaahay ugu talagalay oo aan ahayn midatan oo la sameeyey ama dadku ay gacantooda ku sameeyeen vitamin A baa ku jira vitamin C baa ku jirta niacin maadada la yiraahdo baa ku jirta wuxuu kaloo ka hortagaa wadna xanuunka wadna xanuun haddaa qabtid wadnahaaga oo dhan cudurrada ka hor imaanaya amaba cudurrada wadnaha ku dhaca buu ka hortagaa sababtoo ah cholesterolka ka mid ah oo wadnaha haleeya baa ka mid ah xididada dhan maadaama uu kalingareynayo wadnahaaga marka wax injiro galaysa ma leh aad buu bahalkan u fiican yahay waxaa kaloo ka mid ah maxaan ku idhahdaayey absceska waxyaalaha la dhaho abscesku waa adigu waa sumow oo kale ama nabraha malaxda oo jirkaaga kasoo baxa gacmaha iyo meelahaas aad iyo aad buu ugu fiican yahay waxaa kaloo ka mid ah wuxuu nadiifiyaa beerka dadka laga hayo aad iyo aad buu ugu fiican yahay iyo maxaan ku idhahdaayey kaadi haysta iyadana gaal baladhar baa la dhahaa buu aad iyo aad u nadiifiyaa kaadi badan baa qofka ka imaanaysa jirkaaga dhan buu soo nadiifinayaa keliyihina wuu nadiifinayaa wax yaab la weeye energy waxaad ka helaysaa oo nature ah energy aad ka helaysaa oo qofku wuxuu iska noqonaya qof oo maaragtay xoog leh oo firfircoon buu noqonaya meesha aad ka qaadan lahayd artificial ama wax la walwalaaqay oo energy wuxuu leeyahay oo nature uu leeyahay waxaa kale oo ka mid ah maskaxda maasha allah tabaaraka allah maskaxda sida u shaqeyso iyo neerfayaashu sida u shaqeeyaan
si caadi ah buu u toosiyaa oo wuxuu ka dhigayaa maintenancegooda si qurux badan buu ka dhigayaa oo toosan jirkana qashinkuu ka saara wataan idiin sheegay wuxuuna ka hortagaa all diseasyada oo dhan ama cudurrada jirkaaga soo weeraraya askar minallaahi ah baa maxaan ku rahdaa ilaahay u diraya waxaa kaloo ka mid ah weight loss waxaa loo isticmaalaa weight loss haddaa rabto inaad miisaanka iska dhintid ama aad qof buuran tahay miisaankaaga oo dhan maxaan ku rahdaa dhulku dhigayaa haddii aad joogtaysatid waxaa lagu darsadaa juusaska lagu darsadaa ama si caadiyaaba loo cabaa dadku si caadi u cabaan lama soo koobi karo subxaan allah waxaan la soo koobi karin marka asxaabta ugbaad juuska kan waxaad samaysaan haddaa rabtaanna waxaa loo cunaa si row ah ama isagoo sidiis ah baa la cunaa ama biyo yar baa lagu karkariyaa bariiska iyo suugada badanaa kuma fiicna haddaa rabta bariiska xabada iska dhex dhigo sida loo kariyo weel ama bac baa lagu xiraa waa la dhex gashaa juuska waxaad ku darsataa la shiidayo sidiisu ay u cab hadda noona soo duceeya asxaabta ugbaad waa mahadsantihiin subscribe iyo like iyo share intaba nagu caawiya aad baan u mahadsantihiin